bismillaahi raxmaani raxiim waxaan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada mar kale iyo falanqayn ku saabsan guud ahaan caalamka gaar ahaan maalintii 70aad maxaa ka dhacaya marinka Gaza wararkii ugu dambeeyay dagaalka adag ee ka dhacay bartamaha magaalada Gaza ciidankii Israa'iil ee ku sugnaa goobta teendhada ah ee la weeraray hubka halkaas looga furtay guutada Ciisadiin al-Qasam warka ay ka soo saareen dagaalada adag ee maanta dhacay ciidanka Israa'iil oo bilaabay in xuduudda dalka Masar ay gantaale ay ku garaacaan maxaa halkaas ka jira macluumaadkii ugu dambeeyay ayaan eegi doonaa waxa kale oo kula wadaagi doonaa booliiska Falastiiniyiinta oo markii ugu horeysay lagu arkayo marinka Gaza halkee ayay ka howlgalayaan ciidanka booliiska ah ee Falastiiniyiinta 70 maalin kadibna miyay suuragal tahay inay ku sii sugnaadaan goobaha sida weyn loogu dagaalamayo dhinaca iyo xeebaha Soomaaliya maraakiibta la sheegay in lagu soo afduubtay kooxaha Xuutiyiinta dalka Yemen weerarada ay maraakiibta ganacsi ay ku qaadeen cabsida weyn ee kooxahaas ay ku abuureen maraakiibta ganacsi ee maraya biyaha Badda Cas qodobo kale ayaa raaci doona oo ay ka mid yihiin qirashada Israa'iil ee saraakiishii laga dilay iyo sababta ay u bartilmaameedsanayaan wadada loo yaqaan Philadelphia wariyaha telefishinka Al Jazeera ee marinka Gaza Waa'il Dahduux oo lagu dhaawacay dhinaca koonfureed ee xaafadda Qanyoonis iyo qodobo kale ayaan qaybtan kugula wadaagi doonaa insha Allah soo dhawaada mar kale kamid noqo saaxiibadeena aad baad u mahadsan tahay Marwa Fertility Center xarunta daweynta cudurrada keena dhalmo la'aanta insha Allah waad ku dawoobi la xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqdo mahadsanid maanka ku hay waxa sii dhamaanaya maalinimo Jimco ah fadlan haddii duhurnimadii ilaa maanta aadan aqrin suuratul kahfi isku day inaad hadda aad akhriso sababtoo ah way noo wanaagsan tahay sidoo kalena aad badiso dikriga alle iyo xuska nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waa 15 December u diyaar garow inaad daawato qodobadii aad dhageysatay oo faahfaahsan daqiiqadaha soo socda si aan kuula wadaago haddii aad ii ogolaato waad mahadsan tahay ciidamada booliiska ee marinka Gaza ama Falastiiniyiinta ayaa markii ugu horeysay tan iyo shalay lagu arkayaa iyaga oo gaaf wareegaya goobo badan oo ka tirsan marinka Gaza inkastoo dagaal adag uu soconayo haddana ugu yaraan rajo ayaa muuqanaysa wakaaladda wararka ee Anadolu iyo telefishinka Al Jazeera ayaa si wada jir u baahiyay sawirada qaar ka mid ah askarta booliiska ee gaaf wareegayay marinka Gaza si gaar ahaan ciidanka booliiska ee Falastiiniyiinta ayaa lagu arkay agagaarka deegaanka Jabaaliya deegaankan waxa uu dhacaa dhinaca waqooyi ee magaalada Gaza sidoo kale waxa lagu arkay agagaarka deegaanka Deir al-Balax ama xaafadda Deir al-Balax la yiraahdo xaafadan oo ku taala bartamaha magaalada Gaza waxa mararka qaarkii xitaa qaar ka mid ah ciidanka booliiska lagu arkay dhinaca Qanyoonis oo dagaal adag uu ka soconayo iyo dhinaca marinka Rafah ugu yaraan rajo ayay muujinayaan ciidanka booliiska inay dib ay kaga howlgali doonaan xaafadaha magaalada Gaza waliba si nabadgelyo ah iyadoo sida ay tahay dagaal adag ayaa soconaya haddana boqolaal ciidankan ka mid ah ayaa isqaybiya muuqaalo la soo duubana waxa ay muujinayaan saraakiisha ciidanka booliiska ugu sarreeya ee Falastiiniyiinta oo gaaf wareegaya xaafadda Jabaaliya dhinaca waqooyi ee magaalada Gaza meelaha qaarkii ayaa ay tageen gaar ahaan waqooyiga halkaas oo la sheegay inay ciidamadii booliiska ay isaga baxeen ciidamadan lagu soo daadiyo magaalada Gaza ayaa dadka goobjoogayaasha waxay sheegayaan suuragalnimada inay doonayaan inay ka hortagaan fowdo ka dhacda guud ahaan magaalada Gaza laakiin wadooyinkii ay ku howlgali lahaayeen leerarkii iyo dadkii ay kala hagi lahaayeenba deegaanadoodii waa la burburiyay dhinaca kale maanta oo Jimco ah qoraal ka soo baxay Israa'iil waxa lagu yiri waxaan qiranaynaa in laba ka mid ah ciidankeena ay geeriyoodeen afar kalena ay dhaawacmeen kadib dagaal ka dhacay dhinaca koonfureed ee magaalada Gaza gaar ahaan xaafadda Qanyoonis aaga kala duwan ayay dagaaladu ka dhaceen laakiin waan dul istaagi doonaa meel walba waana kula wadaagi doonaa warka ay soo saareen guutada Ciisadiin al-Qasam sidaas oo ay tahay guutada Ciisadiin al-Qasam waxay xaqiijiyeen inay askar badan dileen kuwa kalena ay dhaawaceen kadib weerar ay ka fuliyeen xaafadda Qanyoonis laakiin Israa'iil waxay leedahay laba askari ayaa inaga geeriyootay afar kalena way naga dhaawacmeen qoraalkan ayaa sidaa lagu yiri sidoo kalena waxa ay ku qirteen in ay geeriyoodeen saraakiil ka tirsan guutada Golani la yiraahdo gaar ahaan injineero iyo kuwa kale kadib weerarkii dhacay 3 maalin ka hor weerarkaas oo ka dhacay iskuul ku yaala waqooyiga magaalada Gaza waxa kale oo ay yiraahdeen marka qaar ka mid ah saraakiisha oo dhaawacyo halis ay soo gaareen ayaa u geeriyooday dhaawacyadoodii inkastoo wararka qaar ay sheegayaan askarta geeriyootay inay yihiin kuwo xalay lagu dilay xaafadda Qanyoonis dhinaca kale maxaa ka dhacay bartamaha magaalada Gaza guutada Ciisadiin al-Qasam waxay shaaci ka qaadeen in howlgal gaar ahaaneed ay ka fuliyeen bartamaha magaalada Gaza gaar ahaan dhismo ku yaalay xaafadda Juhri Adiiq la yiraahdo
waxay sheegeen in qoryaha garabka laga tuuro iyaga oo adeegsanaya inay bartilmaameysadeen guri ay ku sugnaayeen saraakiil iyo ciidan ka tirsan Israa'iil, halkaasna qaarkood ay ku dileen, kuwa kalena ay ku dhaawaceen. waxaa kaloo ay sheegeen in dagaalyahanadooda si toos ay isaga hor yimaadeen ilaa iyo 10 askari oo ka mid ah ciidamada Israa'iil oo ku sugnaa teendho ku taalay guriga weerarka ay ku qaadeen meel ka sukaysay oo ah bartamaha magaalada Gaza, gaar ahaan xaafadda Juhri al-Diiq la yiraahdo. waxay yiraahdeen howlgalkaas waxaan ku dilnay askar badan oo ciidanka Israa'iil ka tirsan, kuwa kale waan dhaawacnay. waxaan sidoo kale halkaas aan ka soo qaadanay qoryaha AK47ka, qoryaha M16ka ah. ma aanay sheegin cadadka rasmiga ah ama tirada qoryaha ay halkaasi ay ka soo qaateen oo ay ka furteen askartii ay dileen iyo kuwa kale ay sida caadiga ay u soo qaateen. laakiin waxay yiraahdeen halkaas howlgal gaar ahaaneed ayaan ka fulinay, askar ayaan ku dilnay, qoryahaasna waan soo qaadanay. sidoo kale wararka hadda soo kordhay waxaa ka mid ah in dhaawac uu soo gaaray wariye Waa'il al-Daxduux. wuxuu ka mid yahay wariyaasha telefishinka Al-Jazeera, waxaana lagu waramayaa isaga oo warbixin ka soo sameynayay iskuulka Xayfa lagu magacaabo oo ku yaala dhinaca Qaanyoonis in uu ka mid ahaa dadkii halkaasi ku dhaawacmay maanta kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ay halkaasi ay duqeeyeen. iyadoo sidaa ay tahay marka ciidamada Israa'iil ayaa maanta gaadiid ay dadweyne la socdeen waxay ku bartilmaameysadeen xerada qaxooti ee Balata la yiraahdo. xeradan waxay ku taalaa meel u dhow magaalada Nablus, magaaladanina waxay dhacdaa dhinaca daanta galbeed. halkaas weerarada ay Israa'iil ka fulinayso aad ayay u sii kordhayaan oo ay dad badanna ku xirxirayaan, kuwana ay ku dilayaan. wakaaladda wararka ee Anadolu ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada Israa'iil ay hubka culus ay la dhaceen gaadiidkan oo marayay agagaarka ee xerada qaxooti ee Balata la yiraahdo dhinaca waqooyi ee daanta galbeed. halkaasina dad badan ayaa lagu waramayaa inay waxyeello ay ka soo gaartay rasaastii ciidanka Israa'iil ay. sida uu baahinaya marka telefishinka Al-Jazeera, dagaalka ugu adag ee shirqoolka ahaa waxa uu ka dhacay xaafadda Juhri al-Diiq bartamaha magaalada Gaza. sidaas oo kale dhinaca koonfureed iska horimaadyo goosgoos ayaa ka dhacay. gootada Al-Qudus garabka Islaamic Jihad dhankooda waxay sheegeen in ay weerar gaadmo ah ay ku dileen ciidamo Israa'iiliyiin ah oo ku sugnaa dhinaca iyo waqooyiga magaalada Gaza. waxaa kaloo ay sheegeen in gaadiid badan oo ciidanka Israa'iil ay lahaayeen ay gubeen iyagoo adeegsanaya gantaalka garbaha laga tuuro ee Al-Yaasiin 105. waxaa soconaya dadaallo Maraykanka uu doonayo in Israa'iil uu ku cadaadiyo in dagaalka wejigiisa kale la soo gabagabeeyo, ugu yaraanna miiska wada hadalka mar kale dib loogu laabto, la iskuna dhaafsado maxaabiista labada dhinac ay kala haystaan. Xamaas waxaa gacanta ugu jira in ka badan 100 maxbuus, kuwaas oo ay soo qabsadeen 7 Oktoobar. ilaa iminkana waa la weysan yahay halka ay ku qarinayaan. sida oo ay tahayna Israa'iil waxay leedahay meedadka ilaa iyo 3 askari oo Xamaas gacanta ay ku hayeen ayaan dib u soo helnay, kuwaas oo lagu aasayo gudaha Israa'iil, sida uu baahiyay wargeyska Haaretz la yiraahdo oo ka soo baxa Israa'iil. dhinaca Lubnaan haddii aynu eegno, gantaale ayaa kooxda Xisbullah waxay ku garaaceen deegaanka Yaaruun lagu magacaabo. waxay sheegeen in halkaasi ay ahayd xarunta dhexe ee taliska ciidanka Israa'iil ee ku sugan dhinaca waqooyi. waxa kaloo ay sheegeen inay xaruntaasi ay burburiyeen kadib markii ay gantaale ay la dhaceen. sidoo kale waxay sheegeen in gaadiid ciidamada Israa'iil ay saarnaayeen ay ku gubeen halkaas oo tiro askarta Israa'iil ka mid ah ay halkaa ku dileen. dhinaca Xuutiyiinta Yemen haddii aynu eegno, waxay yiraahdeen waxaan sii wadaynaa weerarada ka dhanka ah maraakiibta isticmaalaya biyaha badda cas ee ku jeeda ama ku wajahan dhinaca iyo xeebaha Israa'iil. maanta oo Jimcaha waxaa soo baxaya wararka ku saabsan dhowr weerar inay dhaceen, inkastoo mid ka mid ah maraakiibta halkaa marayay oo uu ka dulbabanaya calanka waddanka Liberia la sheegay in weerar uu la kulmay. waxyaabo aan la garanayn ayaa ku dhaca, waxaana ay u badan tahay in uu yahay gantaal ka yimid dhinaca iyo Yemen, gantaalkaas oo kooxaha Xuutiyiinta ay tuureen. sidoo kale waxaa soo baxaya macluumaad ku saabsan in markab ganacsi lagu afduubtay xeebaha Soomaaliya. kooxaha la dagaalanka waxay ugu yeereen burcadbadeeda ee midowga Yurub. waxa ay leeyihiin markab laga leeyahay dalka Spain ayaa lagu afduubtay xeebaha Soomaaliya, waxaana afduubtay kooxo hubaysan. lama sheegin kooxahaas inay Soomaali yihiin iyo in kale, laakiin waxaa loo badinayaa agagaarka xeebaha magaalada Boosaaso dhinaceeda in lala soo aaday markabka. dhinaca kale, markab lagu magacaabo Ruin ayaa la sheegay in lagu qabtay xeebaha dalka Yemen, gaar ahaan biyaha badda cas.
markabkan waxaa lagu waramayaa inay leedahay shirkad ku taala dalka Bulgaria. waxaa saaran 18 shaqaale oo ay ku jiraan 8 muwaadin oo u dhashay dalka Bulgaria. inta kale shaqaalahana waxaa la sheegay inay ku haysto baasaboorada Angola, Myanmar, sida u baahiya telefishinka dalka Bulgaria. waxayna u badan tahay kooxaha Xuutiyiinta ee dalka Yemen inay gacanta ay ku dhigeen. sidoo kale maanta waxaa la sheegay in xeebaha biyaha Bab el-Mandab loo yaqaano oo agagaarka Yemen ah in gantaal plastic ah ay u badan tahay kooxaha Xuutiyiinta dalka Yemen inay ku garaaceen markab uu ka dulbabanaya calanka dalka Liberia sidaan hore idinkugu sheegay. dab ayaa ka kacay laakiin macluumaad dhameystiran lagama helin markabkaas, waxaana sidaa baahinaya hay-adaha dhanka badda ee dowladda Ingiriiska. dhinaca kale golaha wasiirada Israa'iil waxaa lagu waramayaa inay meel mariyaan qorshe la doonayo in gargaar lagu gaarsiiyo marinka Gaza, iyada oo gargaarkaasi la soo marsiinayo dhinaca wadada loo yaqaan Kerem Shalom oo gacanta ay ku hayaan Israa'iiliyiinta. sidoo kale Israa'iil waxay leedahay waxaan soo badbaadsanay meydadka ilaa iyo 3 ka mid ah saraakiisha iyo guutooyinka ciidamada Israa'iil kuwaas oo gacanta ugu jiray ee dhaqdhaqaaqa Hamas tan iyo 7 Oktoobar. kadib markii howlgal ay fuliyeen ayaa ay sheegeen in askartan oo 23 jir iyo 19 sano jir ahaa ay soo furteen, qaarkoodna waxay ka tirsanaayeen guutooyinka ciidanka Israa'iil iyaga oo injineer ahaa. sidoo kale Israa'iil waxaa lagu waramayaa maanta inay weerar ay ka fulisay dhinaca marinka Rafah iyo wadada loo yaqaan Philadelphia oo barnaamijkeenii galabnimo aynu kaga hadalnay macluumaad ku saabsan sababta ay Philadelphia iyo Israa'iil ay u bartilmaameedsanayso, sababtoo ah halkaas wax un bay ku tuhmayaan. waana agagaarka xuduudda dalka Masar. dagaalkuna wuxuu u muuqanayaa inuu kasii ballaaranayo halkii ay markii hore qorsheeyeen Israa'iiliyiinta inay weerarada ay ka fuliyaan. maanta weerarkii uga adkaa ayaa marinka Rafah ay ka fuliyeen oo gantaalo badan ayay la dhaceen. sidaa oo kalena wadada loo yaqaano Philadelphia oo dhacda dhinaca koonfureed ee marinka Gazana waxaa la sheegay diyaarado drones iyagoo adeegsanaya in halkaa ay weeraro ay ka fuliyeen. ma jiro wax war oo ka soo baxay dhanka iyo dowladda Masar oo ku aadan in agagaarka xuduudooda gantaalada Israa'iil ay ku dhacayaan. waxaa sii kordhaya cadaadiska xooggan ee la saarayo Israa'iil. wakaaladda wararka ee Reuters waxay leedahay aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa si weyn Israa'iil ugu cadaadinaya in sida ugu dhaqsiyaha badan dagaalka la soo gabagabeeyo. Xisbullah dhankooda waxay sheegeen inay gantaale ay ku garaaceen agagaarka deegaanka Al-Jardah lagu magacaabo. deegaankanna wuxuu ku yaalaa dhinaca xuduudda Israa'iil iyo Lubnaan. gantaalka Burkaan lagu magacaabo ayay sheegeen inay u adeegsadeen weerarka Al-Jardah oo dhinaca galbeed ee xuduudda Lubnaan ah. wax walba oo ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah.